ifbixii hore ee saakay qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala degmooyinka howlwadaaga waa bari iyo hodan ayaa ku waabariistay ayagoo inta ugu badan guryaha ku yaala degmooyinkaas lasoo hordhigay iyada la gowracay dadka ku dhaqan xaafadaha lagu arkay arrintani ayaa isugu soo baxay waddooyinka iyagoo aanan garanayn micnaha dhabta ah ee ka dambeeya xoolaha gowracan ee guryahooda lasoo hortabay iyo weliba cidda ka dambaysa hawshani ee ku lug leh waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan degmooyinka lagu arkay xoolaha gowracan oo ka hadlaya dareenkooda xilli TV-ga Soomaali Cable xaafadooda uu ku booqday hadda degmada reer howlwadaag hadaan nahay waxaan aragnay saaka hadda hurdada ka soo kacnay ida gowracan oo wax la yaab la oo meel walba laba la dhigay aan arag taas oo aan la yaabno la fajacnay hadana oo aan waligay aanan arkin subaxaan waxaan aragnay degmada agagaaraheeda 6 neef oo ida oo laba meel taal labana meel taalo xabadana meel taal xabadna meel kala taalo markii aan aragnay tacajibeynu noqotay waxaan ana hore u arki jirin oo hadda nagu cusub waaye waana la yaabna waxay yihiin damba naqaan anagu ilaahay baa yaqaan Allah subhanahu wa ta'ala saaka markii waaga aroorta ilaahay noo burisay waxaan arkay 6 neef oo min laba ah meel kala oolo oo xaafada anaga aan waligeen waxaan arkinaa hadda oo cusub aan ka aragnay waan la yaabanahay halna meel kale u yaala asan 7 xabba isku yihiin hadii sidii loo sheegay dheen intaan ku aragnay warna uma hayna hadda kale waxay yihiin Ilaah baa og kale degmada howlwadaag saan u dhannaay waa ku yaabana walaalow saaka waxaan ku waabariisanay neefaf yar oo idaha oo subayna ah oo degmadii howlwadaag geeska gees daaftan waliba xaafadeena anaga ay waxyaabo badan aan ku aragnay dhowr meel ay yaalaan waa yaabana waa wax nagu cusub dhanfariir dadka ilmihii naagii dumarka meel saaka meel la aadama leh hadalaynta waxay noqotaba neefafkii noola soo dhigay meelaha waa la yaabana waa wax aad ugu badan waligeen waxaan aragnay ma aan cimrigaygu ma yara noloshayda wali wax isoo mareeyo ma aan maba arag dhanka kale mas'uuliyiin ka socota gobolka Banaadir oo ka mid ah xiriiryaha degmooyinka gobolka ayaa kormeer ku tagay degmooyinkani si ay ugu kurgalaan arrintan ku soo korortay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka hodan waa bari iyo howlwadaag oo iyaguna inuu la xiriirna ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan arrintani wixii ka soo baxanay warbaahinta u soo gudbi doonaan lama garanayo micnaha dhabta ah ee ka dambeeya xoolaha gowracan iyo weliba cidda ka dambaysaba iyadoo ilaa hadda lagu muransan yahay maadaama dhacdani ugub ay ku tahay reer muqdisho inkastoo waajoogu macquul tahay inay micnaheeda fahmi karaan Abdullaahi Axmed Atoosh Soomaali Cable TV muqdisho